waxaa jiray saxaabi la yidhaahdo zaahir bin alxaraam nin reer miyiya buu ahaa waa ashjaciya qabiilada khatafaan la yidhahdo ka mid ah waxaa nin baadiya markuu ka yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdaan markuu u yimaado had iyo goor ama turfuu sheegi jiray turfadu waa wax nebiga farax geliya oo ka warramo hadyadna wuu keeni jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam uu baadiya uga keeno waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka uu ninkaasi baadiya ka yimaadee magaalada yimaado hadhow markuu ambabaxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ambabixin jiray wixii uu magaalada kaga baxayo ayuu siin jiray markaa si awgeed buu nebigu wuxuu lahaa ina zaahiran baadiyatuna wanaxnu xaadiruuh zaahir waa reer miyiga iyaga annaguna magaalo jooggiisii baanu nahy yacni isna waa ninka baadiye noo jooga dhaqanku wuxuu iska ahaan jiray dadka baadiyo hadiyadday keenaan subag iyo caano iyo xoolo iyo wixii la mid ah hadhow markay magaalada ka baxayaanna dhar iyo kaba iyo wixii la mida in la siiyo maalin maalma ka miduu yimi zaahir muuqaalkiisa marka la eego waxaa la yidhaahdaa nin foolxun buu ahaa dabeetana magaaladuu yimi isagoo suuqii wax lagu kala iibsanaya joogo oo wax gadaya iibinaya ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana isagoo aan arkayn buu dhabarka kaga yimi oo saa u qabtay ma arka zaahir ciddan dhabarka ka timee qabatay man haada arsilnii buu yidhi war waa kuma isii daa buu leeyihi kadibna markuu jalleecay wuxuu arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu isku nabay nebigu markaa intuu saa u qabtay buu wuxuu leeyahay war yaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabdi buu nebigu yidhi war addoonkan yaa iga gadanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo la kaftamaya addoonkan yaa iga gadanaya zaahir baa markaa hadlay wuxuu leeyahy yaa rasuula allahi idan wallahi tajidunii kaasida ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisii oo haddaad igadda buu yidhi kaasidku yacni waxa weeyaan waan kugu fadhiisanaya maxaa tidhahdaan tijaaradu markay kaa socon weydo suuq loo waayo aniga cidinay gadan maysa buu leeyahy ninkayga zaahir ah cidi kaa gadan maysa ilaahay rasuulkiisiiyo waa igu baaraysaa ama waa igu fadhiisanaysaa ama ma layga kaa gadanaya buu leeyahy nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lakin cinda allahi lasta bikaasid ama anta cinda allahi qaal xadiidku shamaa'il almuxamadiya buu ku yaallaa waana xadiis saxiixa say culammadu sheegeen wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa mid baariyaya ama mid aan gadmaynin kama tihid buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadday bini aadamku muuqaalkaaga u arkaan inaad gadmaynin lasta bikaasidin cinda allahi buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan quruxdu iyo jamaalka iyo muuqaalkan sare alle agtiisa waxa qiimaha kule maaha saynu u kala qurux badannay ilaahay uguma kala dhowin saynu u kala cadnahay uguma kala dhowin ilaahay agtiisa wax kalaa qiimo ka leh sida ogeed baa xadiidkii imaamu muslim uu warinayay wuxuu nebigu leeyahy ruba ashcaha madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi la abara wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ruba litaqliil aw litakhiir ruba ashcaha la arkee mid basaasaysan timihiisa iyo wixiisu aanay feedhnayn ama shanlaysnayn oo basaasaysan oo madfuucin bilabwaab buu nebigu yidhi albaabada aan laga furin yacni waa miskiin ama waa kan la yidhaahdo aan ahayn dadka loo hashhashleeye albaabka loo furo aan ahayn laakiin haddana nebi maxamed muxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam low aqsama cala allahi la abara hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wuu u rumaynaya hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa sidii uu u dhaartay baa ilaahay u rumaynaya yani nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa idinku wax ku qiimaynaysaan ee dadka ku qadarinaysaan inaanu ahayn alle agtiisa wax lagu qadarinaya si awgeed midaydan idinku albaabka ka furaynin oo muuqaalkiisa sare aanu ahayn muuqaal dadku ay soo dhoweeyaan
ayaa haddana ilaahay agtiisa wuxuu ka gaadhsiisay maqaamka ah hadduu alle ku dhaarto in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaartiisa uu rumaynayo yani waxaan leenahay mujtamacii muslimka ahaa markii uu ku dhacay cultural revolution waxay wax ku qiimeynayeen siday wax u arkayeen iyo maadada iyo adduunku qiimuhu la lahaa markuu isbedelay ay noqdeen wax kale waxa bini aadamka lagu qiimeeyaa lagu kala horumariyaa ee dadku ku baratamayaan markaas bay sameeyeen xadaara aan dunida soo marin xadaara aan dad kala sarreeya lahayn oo aan isxaqiraynin oo aanu quruxda iyo midabka sare qiimo ka joogin si awgeed isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam masaa'ilkaasi xoojinaya xadiidka muslima kale waa ka ku tilmaamaya in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum ilaahi subxaanahu wa tacaala ma eego muuqaalkiinna sida u egtiin ama xooliinna ama waxaa haysataan walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahi wuxuu eegaa quluubtiinna waxa ku jira ee iimaana ee alla ka cabsiya ee taqwo ah ee akhlaaq fiicniya waxa qalbiga idinkaga jira ee rumaysantiin iyo waxa idinka soo fulaya ee acmaala waxa idinka soo fulaya camala nooca uu yahay iyo waxa quluubtiinna ku jira kaas baa rabbi qiimeeyaa buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sidaa ogeed waxaa jirta qiso caana saxaabi baa jiray isna raggaa aan quruxda badnayn ka mid ahaa waxna haysanin marka waa nin aan quruxna badnayn maal adduunyana lahayn markaasuu nabigu weydiiyey julaybiib baa la yidhaha war julaybiibow maxaad u guursan weyday oo yaa ii guurinaya buu yidhi aniga maal la melihi yani baa ka muuqada een qurux laygu raacana igama muuqato gacantaydana wax kuma jiraan yaa markaa gabadhii guurinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu baxay qolo ansaara buu u tegey ansaartii nimankii ahaa markuu u tegay wuxuu ku yidhi yaa fulaan zawijni ibnatak waar hebelow gabadhaada isi guuri saxaabadu inta badan way jeclaayeen xididnimada nebiga calayhi salaatu wasalaam inay nebi maxamed xidhiidh la yeeshaan walidalik baa la yidhahdaa ansaari hadday nin ansaarta ka mida gabadhi u kacdo wuxuu la hamiyi jiray sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu guursan lahaa ninkanna waxaaba u yimi nebigii oo leh inantaada isiiyo ii guuri dabeetana nicima wa nucma caynin buu yidhi yacni waa erayo tilmaamaya si uu ugu faraxsan yahay waa dee khayr uu bushaaraysanayo waa wax idinku doogsataa buu leeyay nebi maxamed oo gabadh naga soo doonay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi innii lastu linafsii uriiduha anigu lafahayga uma doonayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhan ku weydiisanayo anigu ma aha qofka guursanaya qaala faliman buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadda ayaad u doonaysaa ergeyga ka tay qaala lijulaybiibin buu nebigu yidhi julaybiib baan erga u ahay marka ninkii wixii uu moodayey waxaan ahayn baa soo baxay markii hore go-aanka keligii baa iska qaatay markan wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyo balaan islaantii la tashado arrinku hadduu julaybiib yahay aan islaantii ku noqdo xaaskii aan u tago hooyadeedaan wax weydiiya buu yidhi wuxuu u tegey islaantii inanta dhashay markaasu wuxuu yidhi nebi maxamed baa gabadh inaga soo doonay calayhi salaatu wasalaam iyana sidii oo kaley tidhi nicima wa nucma caynin waa wax ili ku doogsato waa badhaadhe bay tidhi haddii nebi maxamed ba inoo yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi lafihiisa isagu u dooni maayo qaalat faliman yuriiduha oo haddaa yuu u rabaa bay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadha yuu u doonaya qaala lijulaybiibin julaybiib buu u rabaaba ayuu ku yidhi qaalat xalqaa lijulaybiibin xalqan haddii la yidhaahda bay yidhaahdeen waa cuna xanuun xalqa haddii la yidhaahdana bay yidhahdeen biduuni tanwiin waa xiirid
وأرى يقول لك ما هالكي سومالي دو بقى يراهدان أما بقى أما وحلمي ده يعني وحيان رجين يسوي حانا حين أياكو صباحي سيد مودي سيسارة ما صباح ضي لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا إلهي ما كنا أرتي جليبيبا نقول تيدا سين ما يبي سلانتي تري أضيق مرة داي سلانتي كهرتمي وقعي مركو يسيري حقي النبي قبا عليه الصلاة والسلام إن أنت وي مغليسا وركا دح صعدا بهد يهو يدين أي حاجة دمك على هذا الشيء وحكو تري وحن دين ويديو يا إيجا كين صدوني مركز ليلي رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام سيتري أتردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره ومن نبي محمد بهذا الكوع لنسان مركه أنت النبي محمد يدين يمو يري قبر دايسية مياه هدنا النبي جي علي نسان بي كتري أنيقا النبي جي يوريش يا بيتري واي النبي محمد مر نبا أنيقا يضيع مايو إيه هديدين ورك النبي عليه الصلاة والسلام وضاقي يا سلامتي إن أنت مسألة دي وكفر فرطة دبت تنوى أقبلين نبي قوي ما وضاقي يوحك ويري شأنك بها فزوجها جليبيبا إلهي رسولك سيو إن أنت واكو سيني يعني جليبيبي عدة دوني سمركا سيو قوري نبي عليه الصلاة والسلام روايات كأحاديث قاركود وحيشاقي أنه دعائي على كل حال والله دقال قال جليبيب قبردي والله دسي ولا سي دبتنا غزوات كي النبي قال عليه الصلاة والسلام غزوة كم يدبو قال دقال كمركي لقى صار نقضي أيو نبي حري تفقدون من أحد يا إنا قمقان يا لواي مركاسا كل بان الله شيغا هبل لما هيو هبل والدلي هبل لما هيو هبل والدلي دتكي سيدو النبي قولها تفقدون من أحد عد ما إذا كان مقام تهاي أيام مركي دم الله يدي ماي عد ما مقرأ مركز سنة بقول هذا ما أنا قاعد بايقا مقان هو يا مقان إلهي رسولك سبحانه ولكني أفقد جليبيبا فاطلبه في القتلى ورنقول إنك جليبيبا هذا الله بلدتك الذي لك صائغا والله بعد قوبي وهلا هلاي تضبط قالوا ميدو ميل يالي يسقيو دين عياله وحلا إلهي رسولك سيالك سانو وطقنا تضبط ميدو قال دين ويالين اسنوي ياله أقتل 7 ثم قتلوه هذا مني وأنا منه نبوكو على لي ما تدبو ديلي مركز سيد ديلين كاسي وايقتر سيانا وان كتر سريب نبوكو عليه الصلاة والسلام هذا مني وأنا منه روايات قاركود وحيت الماميان إنه صدح شيركو علين نبوكو عليه الصلاة والسلام دبت أنا والله صوق هذا نبوكو قعمه سوء ديغي إساقا هيي انتي حباشا لقو قضي يورد النبي عليه الصلاة والسلام قعنتي سوبر كنا مركي حباشي اللورد ما يبقى الله حبالي وحادثة اللورد اللي شده الشهيد كان الله ما يرين جليبيب وأنا فرمرن بوها نما نروح بدنين بوها صحابي أنساريوها لكن وحو نبي كو قيمين يا ما هم ظاهرته ما هو سيدو إكا رجل قصير دميم بيليين لكن قصر يدمي من مدى نبي وحكومة قيمينين كما قيمينين هنتمحو هيستي يوحو لي هذا مني وأنا منه كان يانو يقتر سنيهي ومن جماعتي أنا قلنا كوحدي سام كتشراب النبي عليه الصلاة والسلام وحيت المامسة موازينتي ماشي اللي هي ميزانها هنا هين إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكو قيمين إنه برا الصحابة ضطن بلشدو فاليوس كدين لبدلوه رقم هذه الجاهلية اللي قال يمي مقالضة إياه وحدتكو هايستان إياه سيدا اللو أجي وحكو قيمينين أنا مسلمكو وحكو قيمينين وحدتك اللو قيمي ما كرسي هذا إياه السيادة إياه منصبك إياه جاهة إنه مدحويني وزيرية هي كان هي مكاسبة النبي عليه الصلاة والسلام وميل فرديا من صامري مركزو نم فردي اللي فردي ما رأيك في هذا نك هالكامرية حكولي
رواية قاركودنا ما تقولون في هذا بويري نكا محا أوران لهيدين وحيدادين ورجل من أشراف الناس وادتك وايل كيسي نكا مده وانينو odayadii reerka ka mida intaa kumay daynina ammaan bay bilaabeen hada wallahi xariyun bay yidhaaheen in khataba an yunkax ilaahay rasuulkiisiiyow kaasi waa nin dee ragga labeentiisii sare ka mido waa nin hadduu gabadhku weydiisto loo guuriyo oo hadduu erga kuugu yimaado ergadiisa la aqbalo oo hadduu warkuu sheegayo warkiisa la dhegaysto bay leeyihin waa waayeelka ayuu ka mid yahay uu iska aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam cabaar markii la joogaa mid kale soo maray markaasuu yidhi maa ra'yuka fi hada kanna muxuu idin leeyahay aw maa taquuluuna fi hada waxay dhahaan kani waa foqorada muslimiintu ku jira ninkan meesha maray waa iska masaakiinta muslimiintu ka mid yahay dee nin hadduu gabadh ku weydiisto gabadh la siinayana ma aha nin erga hadduu kuugu yimaado ergadiisa la aqbalayana ma aha nin hadduu warramo warkiisa la dhegaystana ma aha bay leeyihin yacni mujtamaca agtiisa wasni kuma laha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu barayaa saxaabadan miisaanku inaanu muuqaaladan ahayn wuxuu ku yidhi markaa hada khayrun min mil'i lardi mili hada kani dhulka muggiyo kii horaa buu ka khayr badan yahay bal miisaanku nebigu saaray arag waa hal qof iyo qof laysuma qiimaynayo kan hore dhulka muggiyo kaa soo maydhana midka maa ka khayr badan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkaan idinka aan agtiinna waxba kama ahayn ee aa leedihiin waa fuqarada muslimiintu ka mid yahay cinda allaahi kaas baa dhulka muggiyo kana ka khayr badan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan wuxuu xadiidku tilmaamayaa mawaasiintan aynu haysanaa inaanay wax saxa ahayn dhallinyarada dambe waxay dhahdaan quwada iyo xoogga iyo waa nin six backle oo muruqyadu dhisan yihiin oo kana bay wax ku qiimeeyaan waa nin feedha buuran feedha buurnidu miyay tahay fi shariica miisaanka wax lagu qiimeeyo ilaahay qolo munaafiqiinu tilmaamo wuxuu yidhi waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilahay yidhi waana munaafiqiin haddaad aragto feedha buurnidooda waad la yaabay buu nebigu ayuu alle qur-aanka ku tilmaamaya waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim hadday hadlaanna fasaaxadooda iyo warkooda waa dhegaysan laakiin ilaahay muxuu ku tilmaamayaa kaannahum khushubun musanada baa la yidhi yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum alcaduwu faxdarhum qiimo darridoodaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala waana ka nebigu tilmaamaya qiyaamaha nin buuran baa la keenayaa buu nebigu yidhi alrajul alcadiim الsamiin ayaa yowma alqiyaama la keenaa falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda buu nebigu leeyahy ilaahay agtiisa garab kaneecamka lama miisaan noqda baa la leeyahy ninkii xoogga weynaaye aakhiro la soo taagay kaneeco garabkeed aakhiro lama aha haddaad rabtaan akhriya buu yidhi falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna waxaa la tilmaamaa cabdillaahi ibnu mascuud saxaabigii la odhan jiray awciyat alcilmiga ka mid ahaa saxaabada raggii u cilmi badnaa ka mid ahaa waxaaba yidhaha nin gaaban oo aada u dhuuban oo mijo yaryar dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa caday u dirtay geed buu fuulay wuu is yidhi caday nebiga uga soo go geedka markuu saaraa ayaa dhudhumadiisii muuqdeen dhudhumo aada u dhuuban ayuu lahaa markuu geedka fuulay ee dhudhunkiisi ay arkeen saxaabadii ayay ku qosleen ninkani siduu mijo yaryar yahay markii la arkay ayay qosleen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi maa tadxakuun maxaa ku qoslaysaan larijlu cabdallah ahqalu fi lmiisaani min uxud buu nebigu ku yidhi adinkaa yaree cabdillahi a arkaysaan aakhiro miisaanka buurta uxud waa ka culus tahay uu ka culus yahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam buurta uxud ee iska dhan miisaanka aakhira waxaa kaga culus adinka a idinku ku qoslaysaan ayuha alaxiba ilaahay markuu ragannimada qur-aanka ku tilmaamayo
dakarnimada iyo raganimadu waa kala laba inaad lab tahay waa mas'ala gaal iyo muslimba dee lab iyo dhadig waa leeyihin laakiin raganimada rasmiga qur-aanku uu sheegaya min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجالك إلهي وحكو الشاقي إن يجين قوة كان وقوة صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلهي بلنك يلقى لين كرون شاقية تمرك لا إله إلا الله محمد رسول الله تلاهده عليه الصلاة والسلام بلن ما تقش إنه قال للرب جاي هي كل جاد عابد يسوع طريقة مريسان إنه كي نبي محمد نقول يا عليه الصلاة والسلام بالله كابان كش إذا واحد وحقوق قيمين يسوع يصاد نرش أو أركيسه يدونك قيمه قليا لنا يو وحرد من إن لا إله إلا الله محمد رسول الله وسيبادان إلهي وحلي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر رجي بالله كاسفولي إن يجوا وضضها هيكو جريودين إنه والسجيان وشت كاسي ولا حياه قصة سأرورنا يا الحاكم في مستدركه بسند حسن يا وحلا إلى هذا مقالة مدينة دار كم إذا يا عمر فرديا جماعة من الصحابة نصوف فريستين مركز حكولي تمنوا بل خيال كينا وح تمنية متبوحوا لأنه وحن تمني لها دار تنمجد والذهب أين هلو وأندبتنا إلهي درتي وبحيه حول بدن ودارت المجد والذهب أنت أنا يلو لكن أنا ما في عيدا مرة بين المحي في سبيل الله وبحيه مركز هذا عمر كعلي تمنوا متكلا وحولي وحين بسيبة دي دارت المجد واللؤلؤ الزبرجد يو جواهر الغالية يعني بريشيس ستونس حنقالي دارت أنا يكود بوحده أي أنت بيني لها إلهي جتكي سووا بحيه فقال تمنوا markaasay waxay idhahdeen dee wax kaloo aanu sheegno garan mayno adduun intaasun baanu ka garannay cumar baa wuxuu yidhi anigu waxaan see tamaninayaa haddaan heli lahaa buu leeyahy rag abu cubayda bnu ljaraax iyo mucaad ibnu jabal iyo salim mawla abi xudayfa iyo xudayfatu ibnu lyamaan raggaasi oo kale haddaan heli lahaa waan ilaahay kelmadiisa inaan ku kor yeelo أنو قرقارسان لها بولي يعني عمر روح الرباين والصحابة دولوا تلمامو ماتيريال كوينانو هين قيمة كواحد لسه قالها السماية واحد سماية بني آدم سمالة دم كواحد سلام ملا هدي وفقر قاسكو كان دري هدي حول الليل هدي حول الليل أنا واسكو مرة لهينون حبا اسمه بدلين ما ها ماتيريال كواحد لسه يسا حول الله يسا الله أبرسين كان معها أما روحوا تلمامين الرجال يهين وحوحان سماية حول الرقبة دقاو السماية وما دي دد هشة لكن دد كوالتي له هشة دد قيمة له هشة رقوا تلمامية أبو عبيدة بن الجراح ونكون أبو تلمامين 10 المبشرين كمدياي أما أمين هذه الأمة ومضى تنقف قوة ما نبضن وياهي وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرق ومعاذ بن جبل ونقول نبي كنت المام أعلم المسلمين بالحلال والحرام نن اللي يرابوها وحلينا قبل جيب دوري سود تشربو كدنت هذا أنا سو دوري تبنشر نو السلام ده النبي يقول كنت المام عليه الصلاة والسلام إنه ياهي أعلم مؤمنين تنك وقوا قوم بدن لما كي مسألة حلال حرام شوكتو النبي كنت المام عليه الصلاة والسلام إذن رجال كوالة له أيا أهل رشا وحكى بيت ألبو المام يا عمر إذا وحي نوبة هني ضد إذا قال معها ضد بين نوبة هني ضد كان قال سبعية حي نوبة هني ضد كوالة له وقوى قرآن كوشيء جياه كوا نبي محمد وكوا الرمي عليه الصلاة والسلام كوا إنهم كو قيمين محي هايستان يسيدي وإيجين يمنسبكي تشوغان يقبل كي كردشين كو قيمين إنه إلهي أنت يوشرا سبحانه وتعالى حريرك الرب لليين انتو لاجي نلش السداي واركان اخر السداي واركان ادونك السداي واركان
كاس بينو باهني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مصطفى جزاك الله خير جزاك الله خير والله رجال عبدنا صالح دورنا الله انه انفعه ان شاء الله شيخنا انت هينو مجلس الله خير مجلس الله ضافه حقها وراح نشتغل ساعه بيجي مركز تو يعني عد كستا وي دغيسtaa loo duxo isaga in sha Allah يا خير الله يجزيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.